النصيحة شأنها في الشرع عالي بالتعاليم الصحيحة ينجلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله. daawadayaal kusoo dhawaada muuqaal kale oo xiiso badan. waxaynu ka soo hadalnay muuqaalkii inoogu xigay ama ka horreeyay mulxidka iyo wuxuu yahay si guud. haddaba maanta waxaynu ka sii qaadi doonaa ama bal ka sii wadi doonaa waxyaabaha ay aaminsan yihiin mulxidiintu iyo kitaabkan uu qoray ninkan u dhashay waddanka Ingiriiska ee loo yaqaano Charles. ninkaasi wuxuu tegay meel jasiirad ahayd, kadibna wuxuu arkay shimbiro afkoodu dheeraanayo marna uu gaabanayo. kadibna wuxuu qaatay fikradda ah in xayawaanku ay ka soo hormareen noole kale, bani aadamkuna asalkiisu ka soo jeedo daanyeerka. dabcan saynisku wuxuu burburiyey fikraddii ninkaas Charles, waxaana maanta u caddaatay culimmada saynisyahanada in ilaahay subxaanahu wa tacaala abuuray noolayaasha, sidoo kalena aanay weligeed suurtagal ahayn in nooluhu ku yimaado qaab lama filaan ah. mashaakilka haysta mulxidiinta ee ay xalin kari laayihiin ilaa iyo hadda aad ayuu u fara badan yahay. mashaakil fara badan ayaa haysta dadka mulxidiinta ah ee rumaysan fikradda darwinisamka ama Charles ninkan lagu magacaabo. keliya waxaynu soo bandhigi doonaa haddii la awood leh ogolaado kuwa ugu muhiimsan ama su'aalaha ugu muhiimsan ee laga weydiiyey. haddaba ugu horreyn waxaa la weydiiyey haddii noolaha asalkiisu ka wada yimi hal unug oo keliya, meeday unugtaas ama unugta noolaha ka wada yimi meeday. dabcan su-aasha waxa ay tahay caqabadda ugu weyn ee haysata mulxidiinta loo yaqaan darwinisamka, oo xitaa darwins laftiisa ayaa ka aamusay in uu ka jawaabo su-aasha iyada. sababtuna waxa ay tahay wuxuu og yahay in uu hadduu ka hadlo arrintaas ay burburayso dhammaan wixii uu muddo dheer ka soo shaqaynayay. noolahaas isu beddelaya nooleyaal kale ma jiro dabcan wax xidhiidh ah oo ka dhexeeya labadan noole. tusaale ahaan waxay dhaheen dadku daanyeer ayay ka soo jeedaa ama uu ka yimi. lama hayo ilaa iyo hadda noole u dhexeeya bani aadam iyo daanyeerka. maxaa yeelay haddii ay dhab tahay sida ay rumaysan yihiin gaaladaas mulxidiintu, waxaan dhulka dusheeda ka heli lahayn noole ah bar qof iyo bar daanyeer. mushkiladda labaad ee haysata waxay tahay arrinta ay dhaheen horumarka wuxuu ku yimi qaab lama filaan ah ama fursad. dabcan qof kasta oo caqli leh wuxuu garanayaa in aanay weligeed suurtagal ahayn ama suurtagal noqon karin in si lama filaan ah uu kalluun isugu beddelo daanyeer, daanyeerkuna isugu beddelo bani aadam. dhanka kale culimmada xisaabta iyo sayniskuba way daadaafeeyeen ama way baadheen suurtagalnimada si lama filaan ah ay noole isugu beddelo noole kale. waxay culimmada saynisku caddeeyeen in hiddo-sidaha DNA oo keliya aanay weligeed suurtagal ahayn in ay ku samaysanto qaab lama filaan ah. ومنار للدروب